ma xanuunsan tahay xanuun ma dareemaysaa ma ka xanuunsan yahay walaalka ama walaasha ma ka xanuunsan tahay ducadan insha allahu tacaala aad ku akhrisid way caafimaadi doonaan ama adna waa caafimaadi doonta haddaad adoo xanuunsan aad isku akhrisid insha allahu tacaala haddaba duco aad iyo aad u cajiib ah oo nebiga sala allahu calayhi wasalam oo xanuunsan oo jibriil ku akhriyey kadibna nebiga sal ly slam uu bogsaday ayaan ku barayaa ee walaalaha muslimiinta gaarsiiya ee si walaalo badan oo xanuunsan loogu tufo loogu akhriyo kadibna ay u raystaan insha allahu tacaala nebiga sala allahu calayhi wasalam anna jibriil wuxuu yidhi anna jibriila ataanii jibriil ayaa ii yimid markaasa wuxuu yidhi faqaala yaa muxamed ishtakayta nebi muxamedow mad sheeganaysaa micnaha ma xanuunsan tahay ayuu ku wadaa jibriil faqaala nebiga sal ly slam wuxuu dhahay nacam haa yaa jibriil waa xanuunsanayaa xanuun ayaan dareemayaa faqaala jibriil wuxuu yidhi bismi illaahi urqiika ilaahay isinkiisi bismi illaah ilaahay isinkiisi urqiika ayaan kugu tufayaa min kulli shayin shaykaas yu'diik adiga ku dhibaya macnaha shay walba adiga ku dhibaya bisinka ilaah ayaa kaaga tufaya min shari kulli nafsin nafka walba oo macnaha shar wado ama aw caynin xaasidin ama il walba oo xaasida ayaan kaaga tufayaa allah yashfiik ilaahay ha ku caafiyo bismi illaahi ilaahay isinkiisa urqiika waa ducadan gaaban insha allahu tacaala waa bismi illaahi urqiika min kulli shayin yu'diika min shari kulli nafsin aw caynin xaasidin allah yashfiik bismi illaahi urqiika waa ducadan gaaban insha allahu tacaala walaalkaaga ama walaashaado xanuunsan haddaad ku akhrisid wuu caafimaadayaa ama way caafimaadaysaa adiga laftirkaaga haddaad xanuun dareemaysid meeshaad xanuunka ka dareemaysa gacanta saar ee kadib isku akhri insha allahu tacaala kadibna waad bogsin doontaa haddii ilaahay yidhaahdo maxaa yeelay jibriil calayhi salaam waa afdalu lmalaa'ika waa malaa'igta ilaahay waa malaga u fadli badan ayuu yahay jibriil calayhi salaam nebi muxamedna calayhi salaatu wasalaam oo ducada lagu akhriyey oo ilaahay uu ku caafimaadsiiyeyna waa afdalulbashar waa basharka dhan kan u fadli badan weeyaan marka labadaasaa u fadli badan mar hadday ducadan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku caafiyey midkood midka kale ku akhriyay uu ku caafiyey annagaad xaggee joognaa waa inaan mar walba aan ku celcelinaa xanuun yar haddaan dareenno waa inaan issaarnaa insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu